بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده عشركني امتحانها ahaa macadka Spain oo aan ugu talagalnay qaabkii cabashada macaamiisha loo xalinayay aan ugu talagalnay isbuuci hore waxaan ka soo hadalnay company policy ama nidaamka companyga in loo dejiyo nidaam cabashada macaamiisha lagu xaliyo muhiimadda ay u leedahay qancinta macaamiisha maantana waxaan ka hadli doonaa insha Allah 10 qodob ee aan macaamiisha lagu dhihin marka la xalinayo ayaan ka hadli doonaa maanta insha Allah 10 kan qodob waa 10 qodob oo daraaso laga sameeyay caalamka oo lagu ogaaday in haddii macaamiisha lagu dhaho ay wax ka sii darayso ma ahana aysan ka soo reyneenin inta badan dadka maamulka hoose ah ama supervisorska la dhaho ayaa waxa dhacdo markii qof cabanayo uu yimaado waxay u arkaan dib inuu u yimaaday ay u arkaan dibkaas markay u arkaan waxay inta badan isku dayayaan inay isdifaacaan oo ay dhahaan arintan oo kale tusaale ahaan arintan shaqo kuma lihi meesha jirto ka raadso waxyaalahaas oo kale arintan waxa waaye waa fiiri doonaa taasna waxa waaye qofka macaamilka waxay ku keenay depression iyo in qoos ina shaqadiisi loo qabanaynin markaas oo kale waxa laga yaabaa inuu macaamilku qarxo oo aad arintii meeshii awal hore ay ka dhaweed oo aad uga qarxo intii meeshii markaas wax lala baari lahaa oo 2 saacadood ka bacdi isoo laabo 3 saacadood ka bacdi isoo laabo hal maalin ka bacdi isoo laabo arinta ana baara processka ana ka yaala nidaamkan ku xalinaynaa inta dheeraad inaad tiraahdo waxa waaye arintan waxba igama gelin inaad difaac gasho hadhowna waxay ku keenaysaa qofkaas macaamilka inaad xal weyso ay ku keenaysaa marka 10 kan qodob ayaan si mujmal ah waa isku soo koobeynaa aan idinku sheega insha Allah wixii talo iyo u baahataana waa nagala soo xiriiri kartaan insha Allah si xaalku u fiicnaado marka mar walbo waliga macaamilka ku dhihin 10 kan qodob ee soo socda 10 qodob waxa kamid ah arintan shaqadeeda ma ahan yani arintan shaqadeeda ma ahan qofka macaamilka waliga ku dhihin cabashadiisa haduu ku keeno yani qofka macaamilku ahi shirkadan adiga ayuu ku yaqaanaa يعني markuu soo galo shirkadan oo soo galo company X markuu soo galo adoo ku yaqaana shirkada dhanna adiga ugu sareyso aaminsan meel kale oo wax jiraan inuu jiro ma aaminsana qofka u yimid waa adiga wuxuu aaminsan yahay shirkadaas ina adiga mas'uul ka tahay ina adiga wakiil ka tahay ayuu aaminsan yahay marka hadaa dhahdo adigii oo ku aaminsana shaqadan shirkada mas'uul kama ihi shaqadan shaqadeeda ma ahan intuu ceersanaa laba waxa waaye waa isku dayi doonaa macnaha waxay taas u muujinaysaa arin muhiimada inaysan lahayn arintaada macnaha oo qofka macaamilka in lagu dhahay saas u dhigan tahay marka waa mamnuuc in lagu dhaho warkaas waxa kale oo jira isdaji arintaada nama qusayse ayadana sidoo kale waa tii kore la mid tahay arintan shaqadeeda ma ahan isdaji arintaada nama qusayso waa qalad qofka macaamilka ah processkiisa meesha uu ku xiran yahay waxa la rabaa ina ama adigu inta asaga balamiso adiga soo xaliso shirkadaada ka soo xaliso oo asaga macaamilku la soo laabato ama si tartiiba inta meel ii fadhiiso tiraahdo cidda ay shaqadan qusayso u tagto qofkaasan ku keenaa ina arintiisa gashaa laga rabaa dhahdo oo qofka aawado xafiiskaas aad geyso xafiiskaas marka geyso adiga mas'uuliyadaas way ka dhacaysaa laakiin arinta ima qusayso kale lama dhihi karo waxa kale oo jira oo inay ka darayaan la ogaaday arintan ani ma qusayso ee xarun kale ayay qusaysaa ee aad ina dhahdo ayadana waxa waaye waa halis xarun kale aad tusaale ahaan qofkan xaruntiina bakaaru yimid waxa tira arintan ma qusayse xarunta Madiino ay arintaada qusaysaa aad war shirkadu waa isku shirkadii anaga waxa san gelin arintan macquul ma ah maya saas waa xagaas aad waa qaldan tahay oo kale hada qofka macaamilka ku dhahdo waxa waaye qofkaas yani xanaaq meesha ugu dambayso taga waxboona ka daraa hadheen lama ogola inaad dhahdo qofka waa qaldanta aslan qofkan
وعبنا قف بكانا وعبناي ودب هيسدو واي oo shirkadaada oo la soo macin biday waa in aad la qabataa wixii aad la qaban karto laakiin waa qaldanta asna ma dhigi karto okay waan jeclaan lahayn laakiin ma lama ogola ayadana arintaas inaad dhahdo waxay la micno tahay waa isku dayi doonaa ay la micno tahay waa jeclaan lahayn laakiin arintan ma xalli karna camal marka taas oo kalena waa qalad fadlan lambarkaaga qaado waxaan annaga ayaa ka saacidi karno ma jirto wax aan ka saacidi karno ma jirtee nambarkan wato ayaa ku xalli kara tusaalahan business card oo kala soo bixisay nambarkan qaado annaga kuma xalli karno nambarkaas aad inaad dhahdo inaa waxa ka fiican nambarkaas adiga wacdo war hebelow see tahay qof macaamiil oo cabanayo arintaas ka cabanaya jiro waan ku keenaa saaxiibo uga wahaye keen markaas adiga qofkii wad u geey qofkii arintaas kala hadal xafiiska sare macnaha waxay ka micno tahay qofkan ina adoo shirkadii asaga uu ku aaminsanaa ina adiga shirkadii tahay ina tiraahdo arinta meeshaas hebelow kala hadal war aniga meel kale waxa igu diray shirkadii adaaba mas'uulka ah adaaba joogay intaas uu ku leeyahay ma jirto wax aan qaban karno ayadana ha ku dhigin qofka macaamilka wax aan qaban karno oo arintaas aan ka qaban karno ma jirto ha dhigin laakiin wixii processka u sharax processkaas markuu ku qanci waayo ka bacdi escalation samee cidi kale oo isleeda waa ka mudan tahay oo u warjinaysa arintan hadda waqti uma haayo ayadana waxay muujinaysaa in qofkaas macaamilka ah arintiisa ay micno lahayn oo discredit ku sameynayso qiimo dhibis ku sameynayso marka ayadana macquul ma ahan marka waa kaasa qodobadaas oo dhan waxa la idin rabaa inaad iska ilaalisaan wixii faahfaahina nagala soo xiriir lambarkaas waa mahadsantihiin 100% ku soo dhawaada macadka Spain oo mar walba idin la diyaara waxyaalo muhiim u ah xalinta macaamiisha